السلام عليكم كلتو عن ولا سمير كستو عن كجوجتان kusoo dhawaada mawduucan oo kaga hadli doono todoba qodob oo sare loogu qaado caafimaadkiisa kale badqabka kaliya balse inteena mawduuca bilaabin waxaan si xushmad kaaga codsanayaa inaad koonka noo saarto follow iyo sidoo kale linka saaran profile-ka YouTube sidoo kale Instagram noo saarto subscribe aad ma santahay anu soo laabana mawduuceena marka laga hadlayo shaqada kaliya oo mid farba balse ayaga ugu miisan ay kaliya qabtaan wax kamid ah safaynta wasakhda sidoo kale isoo dheelitirka joogteynta dareeraha marka ku jira jirka haddaba todobada qodob waxay kala yihiin kuwan soo socda kow in qofka hada jiro uu ahaado qof markaa biyaha ku dadaala cabitaankooda waxaana la soo jeedinaya qofku inuu cabo 8 koob oo biyo maalintii oo dhiganta 2 litir oo biyo marka laga hadlayo cabitaanka biyo waxa jirka ka harta sumaay soo kale waxyaabaha wasakhda ee markaa ku jira qowlka dhiigga taas markaa dhici karta haddii qofku aanu biyaha cabin in jirka markaa dib lagu celiyo taasina ay keeni karto inay dhaawacdo kaliyaha sidoo kale in hoos u dhigto shaqadii kaliyaha qodobka labaad ee la soo jeediyay wuxuu yahay inuu qofku cuno cuntooyinka ugu wanaagsan caafimaadka kaliyaha gaar ahaan qudrada iyo kale miraha sidoo loo isticmaalo kuwaas waxay ka dhigan yihiin in markaas hore u qaadayaan caafimaadka kaliyaha waxaana la soo jeediyay kale borotiinada loo yaqaano lean proteiniska gaar ahaan hilibka digaaga oo kale inay u wanaagsan yihiin caafimaadka sidoo kale badqabka in qofka kaliyaha qodobka saddexaad wuxuu qofku inuu la socdo xaaladiisa caafimaad hadduu leeyahay cadaadiska dhiigga oo sareeya waxaa loo yaqaan dhiig karka iyo hadduu leeyahay macaan ama sonkorow taas oo ka dhigan in qofku bedelo hab nololeedkiisa sidoo kale qodobka afraad in qofku sameeyo jimicsi joogto ah jimicsigu wuxuu hoos u dhigayaa cadaadiska dhiigga sareeya sidoo kale wuxuu joogteynayaa sonkorta ku jirta dhiig-wareega taasoo wanaagsan caafimaadka guud ahaan kaliyaha qodobka shanaad waxaa talo ahaan lagu soo jeedinayaa qofku inaanu isticmaalin dawooyinka loo yaqaano painkillerska sidoo kale dawooyin kale loo yaqaano non-steroidal anti-inflammatory drugska kuwaasoo keeni kara inay dhaawacaan kaliyaha waxaana si gaara loo xusay dawada loo yaqaano naproxen haddii qofku muddo dheer isticmaalana waxay dhaawici kartaa caafimaadka sidoo kale badqabka kaliyaha qodobka lixaad waxaa qofka talo ahaan lagu soo joojinayaa hadduu yahay qof isticmaala ama cabay sigaarka inuu joojiyo gab ahaanba sida lagu ogaaday daraasado la qaaday waxay hoosta ka xariiqeen dadka cabay sigaarka in halis ugu jiraan inay dhaawac soo gaarsiiso xididdada markaa kaliyaha taasoo ka dhigaysa in shaqadooda markaa hoos u dhigto taasoo ugu dambeyntii keeni karta in shaqadii kaliyuhu markaa ay yaraato ugu dambeyntii waxaa talo caafimaad lagu soo jeedinayaa hadda jeer qofka la socdo xaaladiisa caafimaad taasoo ka dhigan inuu si joogta u sameeyo baaritaan gaar ahaan hadduu leeyahay cudurrada sida cadaadiska dhiigga oo sarreeya waxaa loo yaqaano dhiig karka iyo sidoo kale macaanka ama sonkorowga tani kula dambe xukuumadsan daawashadiinne nabadgelyo.